Cusbooyin kala duwan iyo macdanta ku harta kelyaha ayaa loogu yeeraa dhagaxa kelyaha. Sida dabiiciga ah, kelyaha ayaa miira cusbooyinkan iyo macdantan kadibna soo raacinaya kaadida. Laakiin hadday ku haraan gudaha kelyaha, waxay isu beddelayaan dhagax. Dhagaxa kelyaha wuxuu ka samaysan yahay calcium oxalate. Hadduu yar yahay dhagaxaas wuxuu soo raacayaa kaadida. Waxaase macquul ah inuu xanuun badan kugu reebo xilliga soo bixitaanka. Ragga ayaa 4 jeer uga nugul dumarka dhagaxa kelyaha. Dhagaxan kelyaha ayaan haddaan la daaweyn qofka u horseeda dhibaatooyin badan iyo infekshan ku faafa jirka oo dhan. Maadada nephrology ee ah barashada kelyaha iyo xanuunada ku dhaca ayaa ku xusan miraha iyo geedaha dabiiciga ah ee burburiya dhagaxa kelyaha kana hortaga aasaaska dhagaxa ee kelyaha dhexdooda. Geedka tiinka. Yaan la isku khaldin geedka tiin iyo tiintiinka. Geedka tiinka ee eebba ku dhaartay suuradda atiin ayaa Ingiliish ahaan loogu yeeraa fig sida ku xusan title-ka hore. Waxaad 2 mirood oo fig ah ku karinaysaa 1 koob oo biyo ah. Waxaad cabaysaa aroortii calooshaada oo maran muddo bil ah. Baamiyaha. Waxaad qaadanaysaa 3 xabbo oo baamiyo ah oo aan karsanayn. Waxaadna ku shubaysaa 2 litir oo biyo ah una daahamayn. Subaxii waad mutuujinaysaa si biyaha oo khali ah u hesho, kadibna waad cabaysaa. Qaraha ayaa sidoo kale sifeeya kelyaha. Waxaa dhex qooshan biyo dabiici ah markii lala barbardhigo fruutyada kale. Waxaad cuni kartaa asagoo fruit ahaan ah ama cabitaan. Digirta waaweyn. Waxaad karinaysaa digirtan oo aad ka samaynaysaa maraq. Maraqaas ayaa dad badan oo ka xanuunsanaya kelyaha loogu soo qoraa daawo ahaan. Waxaadna cabaysaa habeen walba ka hor intaadan seexan. Biyo. Cab biyo badan ugu yaraan 8 galaas maalintii. Biyaha waxay sifeeyaan kelyaha oo waxay soo qaadaan walxaha sameeya dhagaxa kelyaha iyo sun badan oo ku jirta jirka. Biyaha liinta iyo saliidda zaytuunka. Biyaha liinta iyo saliidda zaytuunka oo la isku daray waa daawo saameyn weyn ku leh dhagaxa kelyaha. Waxaad isku daraysaa qaadada shaaha oo saliidda zaytuunka ah iyo 1 galaas oo biyaha liinta ah. Waxaadna cabaysaa subax walba.